mar walba inaad ogaato cudurka aad qabto iyo waxa uu yahay waxay ka qayb qaadataa inaad wax badan oo halis kugu ah aad ka hortagto qofkan hadduu marba aqoon u leeyahay waxa uu qabo cudurka uu qabo haddii lacala problemo indhaha uu qabo qofka waxay sahlaysaa xitaa inuu si dhib yar asagana u fahmi karo si dhib yar dawadiisa u raadsan karo si dhib yar xaaladda indhihiisa ula socon karo macnaha waxaan ka wadaa hadda tan waa ishii artificial oo la soo suubiyey haddaan kor idinkaga furo hadda kan waa ishii dhexdeeda waaye kan waa dareere qaybta dambe ee isha ku jiro oo loogu talagalay inuu isha cufkeeda uu ilaaliyo gaduudkan aad u jeedaan waxaan dhahnaa retina waa qaybta dhan ee qabato aragtida qabato ee kadibna waxaa qaada neerbaha oo aan dhahno optic nerve waxaana loo gudbiyaa maskaxda tan waa lensigii ama baliisha siday soomaalida u taqaano oo meesha caadka uu ku dhaco ama dadka badanaa qaliinada marka loo soo bina meesha laga qala waayo kan waa madowga hore isha oo asagana ilayska intiisa ugu badan isha soo gudbiya kanna waa midka kalarka u yeela isha mar walba nooca ay tahay dadka indhaha buluuga leh dadka indhaha kala feega leh waxaas oo dhan asagana godkan uu leeyahay oo aan nano people wuxuu kontroolaa ilayska inta loogu talagalay inuu gaaro qaybta dambe ee retina ama shabakadda aragtida qabanaysa marka saas darteed inaad ishaadu aqoon u leedahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay waana kugula talin lahaa inaad ishaada iyo xaaladda indhahaaga aad mar walba ka warqabto